مساجد جمعه لبوحه وقال له تكنايو أي نن قروح بدن أو در آذو قروح بدن ستة أي صفقة ركوت كذي وكسوك عي علماء دي بقوي مدي وحبودك تأوجش يا جاي شيخ إمام كان ميكروفون قاتو حيري نيكا ولكن إن الدول تاجن وحولها جماعة مسلمين تو أولاد إلهي هيوي ديان بقول له ادعي يقولي والله ادعي ما شاء الله هذا جمعيه كانوا سوك عي دعاء دي بقول شيكتي والله ادعي هذا جمعيه سدعات بسوك عي دعاء دي بقول شيكتي والله ادعي نن علماء دي كمدا فكري وياري سوفر يسبولو وعر امس هادو مرغورستي بو كيدي مركز ما بو غورسن با اساس ما سونسا دعاء ناس مجمع عادن اولياء علماء او بدن ودعيين ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay bal sheeg khilaaf sunna sunnadii ilaahiyadii uu khilaafsan yahay tariiqadii loo maray saxda ma marin marka uu soo kacay hay'adiisa quruxdiisa waxa la moodayaa nin afar dumar leh oo wali u banaan ku tixin laakiin markuu yiri maba guursanba ayaa la yiri war number ba ka qaldane horta soo guurso horta numberkaas ka soo sax لأنه مرجع إلهي بري طيب هذا الجمعية كله صوكعي نكي حالات دي سوء جاي حواشة كقاربة أيها ورنا فريس ورياض أنتوا إمام بمشي بفريسية علماء دي ما كتر وربا نكي دعاء الدنيا خير كبرنا يدعاء الدون كي محاد فريسي سبا لقيله مركز سوري ورنا برباك غزل بودي نكر مسكح ذو حكاية القضاء سيدكو قرطيو ده ما بقرسن بودي إيه كل جين دتك ما أنت مسلمينتو إن مسلمينتو أعز الناس دتك الدنيا ده وش شرف بدنية نقدان ما جعل الله يمسه مجعلين بل لك يجعله بعد تاج لكن طريقي مسلم بعزيز كل نقني إن أنقاذ الديار ما هو نهي ما هو نهي ومنهن بصدق يجيرك مع قد حي بس أرجو ما قد حي سوما جيركي ما اسكو يمدي ويتشرين waxay yiraahdeen habeen walba bisadi 10 20 wala na dhameeyay seenu badbaadna ka tala bixiya jiir baa yiri marka raay fiican uu soo jeediyo wuxuu yiri waa midaal yaani koortan awrta la suro soo mataqaanaan jaras geela la suro hal qaado oo bisada qoorteeda la soo suro guuri si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dana looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yiri wallahi fikradaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyay waan isku raacnay marka jiirkii sheekhoogii ugu weynaa baa yiri waa hagaaga ayaa soo surayay buu soo saamaynta nabiga sallallahu dad muslimiin toodan maanta inay diinta dhageystaan inay diintu nolosheena ka muuqato inay muslimiintu aacazza الناس inay noqdaan inay waan jecelahay لكن مركز لا قال دينته دلال كيجي نيوال بق غير كدم بو غشنا يا مركيبه وروح بق غير كدم بها غشنه غير كهره غشو يا وديار غير كله انو غليو ان شاء الله هذا الله ينغ فرحيو نين تاجرا ايا مسكيدك سو غلو دعايسنيي نين اي قرابه يهين oo baahna ayaa marka aqalkiisibu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yiri masjidkeebu ku tukadaayo masjidka halka ku yaalo ku tukadaa baa la yiri masaajidkii uu dhex fadhiistay marka dadkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xiran moogta oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla bariyo markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibadu ku sugayaa ilaa dhanacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana weli wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukado iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adag ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu يا الله الله يا مسلم تاجرك إلهي بو باهن يحي مسكينكنا إلهي بو باهن يحي
madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxaa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uun ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiibu hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adiguye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadun buu ku yari wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii un haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee uu tago hooyo 1,000 shilin siiyo war lacagta beryahan aad iga gurtay horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamuu shaqo tegay dad markaa wuxuu arkay niman aqal dhisaya uu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo 1,000 shilino uu la shaqo tago aduu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu u keenay odaygii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabbo tani tii hore way ka duwan tahay buu tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay maalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa